dawada ku soo dhawaada markii barnaamijka maxaa dunida ka dhacaya barnaamijkan oo aanu inta badanba alaaba aanu ku soo qaadano dhacdooyinka ka baxsan Soomaalida iyo waliba wararka gudaha ee Soomaalida ama Soomaaliya ayaa waxaanu ku soo qaadanaa waxyaabaha ugu waaweyn ee caalamka ka soconaya ha haato mid siyaasadda mid arrimaha bulshada iyo waliba mid kastaba anagoona eegayno markasta daawadayaasheena nagu xiran meeshaanu isleenahay waa ay u baahan yihiin inay la socdaan ama waa ay u baahan yihiin inay wax badan ka ogaadaan barnaamijkana waxaanu maanta ku soo qaadanaynaa arinta ku aadan wiilka reer boqortooyada dalka Ingiriiska ee Prince Harry iyo waliba xaaskiisa Meghan Markle labadooda ayaa waxa ay ahaayeen lamaanihii ugu dambeeyay ee ku soo bira qoyskaasi boqortooyada waxa ayna muddooyinkii ugu dambeysay hayeen kuwa wada socday inta aysan isguursanin sanadkii 2018 labadooda ayaana waxa ay aqal galeen 19 bishii May 2018 kahor inta aysan ku dhawaaqin inay isguursanayaan wiilkan oo ah Prince Harry iyo gabadhani oo iyada u dhalatay dalkaasi Mareykanka asalkeeduna ay tahay dadka madowga ayaa waxa uu guurkooda ka dhacay loona dhigay qaab boqortooyo gudaha magaalada London ee dalka Ingiriiska wixii intaas ka dambeeyay waxay ahaayeen dad qoys ah ama lamaane ku dhex jira kana mid ah boqortooyada Ingiriiska iyagoona lahaa xuquuqda boqortooyada dalkan Ingiriiska oo ay ahaayeen dad ka mid ah waxayna deganayeen xarunta weyn ee Palace taasi oo ay degan yihiin dhammaan qoyska boqortooyada Ingiriiska wixii intaas ka dambeeyay waxa soo shacbaxay warar kala duwan oo ku aadan xiriirkooda iyo waliba arrimo kale oo ku aadan sidii ay uga bixi lahaayeen waxyaabaha ku aadan iyo waliba mas'uuliyadda saaran ee dhanka ahaanshaha kamid ahaanshaha qoyska boqortooyada waxa ayna ku dhawaaqeen isbuucii la soo dhaafay inay gabi ahaanba ka fadhiisan doonaan arrimaha ku aadan boqortooyada iyo waliba shaqada mas'uuliyadeed ee saaran iyagoona sheegay inay u guuri doonaan dalkaasi Canada Prince Harry iyo Meghan ayaa wixii intaas ka dambeeyay waxa aad looga hadalhayay arrimaha ku aadan iyaga iyo waliba mustaqbalkooda iyagoona ku dhawaaqay inay sameeysan doonaan nolol iyaga khaas u ah isla markaasna ay gabi ahaanba isaga guuri doonaan gudaha dalkan Britain oo guuri doonaan dalkaasi Canada halkaas oo ay noloshooda ka sii wadan doonaan Prince Harry oo arintaas ka hadlaya waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa Meghan ay go'aansadeen in arintani ay si iyaga khaas u ah oo ay noloshooda u sii wataan ay u go'aansadeen isla markaasna aysan ahayn arin khaladan in si kala loo fasirto wuuna sheegay in ay iyagu mustaqbal yeelan karaan isla markaasna arin ku aadan tan boqortooyada ah in mas'uuliyadda boqortooyada gabi ahaanba ay isaga baxaan ayna ka mid noqdaan bulshada caadiga ugu nool dunida waxa ayna arintaasi oo ahayd arin aad ugu ah gudaha dalkan Britain ay noqotay mid aad loo hadlayo isla markaasna dhamaanba warbaahinta caalamka ay aad u hadalhaysay isbuucan gudahaantiisaba wixii intaas ka dambeeyay waxa aad soo tariyay kharashaadka iyo waliba lacagaha ay ka helaan marka la eego dhanka qoys ahaan boqortooyo iyo waliba lacagta ahaan ay ka helaan dawladda boqortooyada ee dalkan Britain waxayna arintaasi dhalisay in go'aano kala duwan oo aad iskaga hor imaanaya laga soo saaro mararka qaar kii ugu dambeeyay ayaa ah kii ay soo saartay haweeneyda boqortooyada dalkan Ingiriiska Elizabeth II Harry iyo Meghan ayaana haatan laga bilaabo waxay si isticmaali dooneen jagada ay ku lahaayeen boqortooyada sidoo kalena ma heli doonaan dhaqaalihii ay ku heli jireen magaca boqortooyo lamaanahan ayaana sidoo kale si toos ah u matali doonin boqortooyada waxaana looga fadhiyaa inay maagaan lacag dhan 2.4 milyan taasi oo lagu dayactiray gurigooda ku yaala gudaha Britain arintan ayaana dhaqan gali doonta xilliga uguga ee sanadkan sidaasina waxa sheegtay boqortooyada Ingiriiska warbixintan ayaana ku soo beegmaysa kadib markii isniintii ay boqorada wada hadal la yeelatay lamaanaha oo kala hadashay mustaqbalkooda lamaanaha ayaa hore u shaaciyay inay doonayaan inay ka fadhiistaan xilalka heerarka sarsare ah ee u hayaan boqortooyada iyo inay ka qaybiyaan waqtiyadeeda ay ku noolaanshaha gudaha Britain iyo waliba Canada go'aankan ay gaareen ayaana dhaliyay su'aalo badan oo ku aadan qaabku noqon doono dhowrka ay ku leeyihiin qoyska boqortooyada Ingiriiska oo ay asal ahaantoodaba ay Prince Harry ka soo jeedo boqorada ayaana sheegtay kadib bilooyin ay socdeen wada xaajoodo ay kamid tahay tii ugu dambeysay ay si wada jira ugu afgarteen inay taageero u fidiso wiilka ay iyada u tahay iyo waliba qoyskiisaba Harry Meghan iyo waliba Archie waxay markasta ahaan doonaan xubno laga jecel yahay qoyska waxa sidaas tiri haweeneyda boqortooyada Ingiriiska
waxaan uga mahadcelisay shaqadoodii wanaagsaneed iyo weliba sidii ay Meghan durbadiiba ula qabsatay qoyska boqortooyada. bishii October ee sanadkii hore Meghan ayaa dacwad ku soo oogtay wargeyska lagu magacaabo Mail on Sunday kadib markii uu daabacay in si sharci ka baxsan ay u shaacisay mid ka mid ah warqadaha sida khaaska ah loogu diray. wargeyska ayaana difaacay qaabka uu u baahiyay sheekadaasi. Amir Harry ayaa xilligaas sheegay in xaaskiisa ay si arxandara ah u daba dhigteen wargeysyada afka dheer ee gudaha dalka Britain. filim ay nolosheedii uga hadlaysay oo laga baahiyay telefishinka ITV oo ah telefishin gudaha dalkan Britain ka jira ayaa Meghan waxa ay ku sheegtay in hooyanimada ay tahay arin adag iyadoo sababta ku sheegtay diiradda xoogan ay ku hayaan wargeysyada ma jiro cid weydiisa xaaladeeda ayayna tiri. Amir Harry ayaa lambarka 6aad uga jira liiska kala horeynta ee dhaxalka kursiga boqortooyada waxaana ka horeeya oo kaliya Amir Charles, Amir William iyo waliba saddexda cunug ee uu dhalay. arrintan ayaana waxay noqotay mid aad looga hadlay guud ahaan dalkan Britain waxa ayna aad warbaahintu u hadlaysaa nolosha lamaanahan iyo waliba mustaqbalkooda maadaama ay go'aansadeen inay gabi ahaanba isaga guuraan gudaha dalka Britain una guuraan dalkaas Canada halkaas oo ay noloshooda ka sii wadan doonaan walow aan loogeyn qaabka iyo waliba ay nolol wadanaashaha labadani. haddana waxaa muddooyinkan aad loo hadalhayay in ay labadooda sameeysan doonaan ganacsiyo khaas ah isla markaasna ay noloshooda caadiga ay dunidan ugu noolaan doonaan isla markaasna aysan qaadan doonin wax mas'uuliyad boqortooyo isla markaasna aysan qaban doonin arrimaha ku aadan boqortooyada ee dalkani Britain. waxaana labadooda la sheegaya in ay haystaan lacag ku filan noloshooda inta ka dhiman waa haddii aysan sameynin waxyaabo ku aadan ganacsi iyo waliba maalgashi inkastoo ay Meghan tahay qof in hore uga soo shaqeyn jirtay dhanka modelka iyo waliba xayisiinta ayaa waxaa la sheegayaa in ay TV badan oo caalamka ka mid ah iyo waliba company waaweyn oo caalamka ka mid ah ay ku leedahay waxa loo yaqaan shareholders iyadoona taasi ay tahay baa la yiri sababta ugu weyn ay u go'aansadeen in ay noloshooda go'aan ka dhigtaan. arrintan ayaana waxaa aad looga falanqeynayay TV-da iyadoona wargeysyada qaar ay sheegayaan sababta ay arrintan ay go'aanka u gaareen degdeg ay tahay baa la sheegayaa kadib markii Meghan ay sheegtay inay rabtay inay ku noolaato nolosheedii caadiga ahayd iyo waliba tii ay hore ugu nooleed oo ahayd inay noqoto qof caadi ah kana shaqeysta warbaahinta iyo waliba xayisiinta balse markii ay ka mid noqotay boqortooyada dalka Britain ayna guursatay Prince Harry ayaa waxaa gabi ahaanba ka mamnuucday sida uu dhigayo qodobada dastuurka ee qoyskan Britain in uusan qof ka mid ah qoyskaasi uusan ka qaban karin wax shaqo caadi ah oo ay dadku caadiga qabtaan isla markaasna ay shaqadooda u tahay kaliya boqortooyada inay noqdaan qoyska reer boqortooyo. taasi ayaana la sheegayaa inay tahay sababaha ugu waaweyn ee gabadhani ay u go'aansatay in wiilkani iyo waliba iyadaba ay isaga baxaan nolosha boqortooyo ayna u guuraan noloshoodii iyaga khaaska u ah iyo waliba sidii ay ula socon lahaayeen dunida isla markaasna ay u sameyn lahaayeen nolol tan ka duwan. wargeysyada waaweyn ayaa waxay qorayaan arrimahaas iyo waliba arrimo kale inay tahay sababaha ugu waaweyn ay u go'aansadeen in arintana ay uga baxaan qoyska boqortooyada walow aysan ku faraxsanayn sida la sheegayo haweeneyda boqortooyada dalkan Britain go'aanka ka soo yeeray lamaanahaas. haddana waxa aysan gabi ahaanba imaan doonin ama aysan ku noolaan doonin xarunta weyn ee Buckingham Palace ee ku taal gudaha Britain taasoo ah xarunta ay degan yihiin qoyska reer boqortooyo ee Ingiriiska. waxayna lumin doonaan dhammaan lacagii ay qaadan jireen oo ay ka mid tahay lacagta reer boqortooyo gaarka loo leeyahay dhaxalka lacagtii uu hore uga tagay aabihiis iyo waliba hooyadiis iyo waliba sidoo kale lacag kale oo ay sida boqortooyo ahaan ay xaq ugu lahaayeen. waxa ayna tani ku soo aadaysaa xilli gudaha dalka Britain aad looga hadlayo arrintaasi iyo waliba markii hore inta aysan isguursanin ka hor in hore warbaahinta qaar ay u sheegeen in arrinta haddii ay gabadhan isguursadaan Prince Harry in nolosha qoyska wax badan iska bedeli doono isla markaasna la arki doono waxyaabo badan oo arrintaasi ku aadan. waxaana hadda loo haystaa inay bixiyaan lacag gaaraysa 2.4 milyan taas oo la sheegay in lagu dayactiray guri ay ku leeyihiin gudaha dalkan Britain taas oo laga rabo sida ugu dhaqsiyaha badan in ay u bixiyaan. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena tan iyo kulantada nabadgelyo.